waxaa maanta duleedka magaalada Gabiley lagu qalay in ka badan 1300 oo beer ah taasi oo la garanayn waxa yihiin iyo meel lagu qalay toonaasi oo dalka lagu soo gelinayay sifa sharci darro ah oo lagu soo waday magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa waxa gacanta ku dhigay ciidamada booliska ee magaalada Gabiley ay ku qabteen controlka magaalada intaasi kadib waxa loo gudbiyay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga waxaana la xaqiijiyay in aan la garanayn waxa yihiin beerkani iyo waxa laga qalay toona la markaana uu khatar karo caafimaadka qofka ana beerkaasi u gubay si wada jira taliyaha booliska gobolka Gaashaanle Sare Maxamed Saleebaan iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo agaasimaha waaxda fayadhowrka waxaana ay fariin u direen hudheelada ka ganacsada beerkani waxaana yiraahdeen oo la rabay waxa in laga iibiyo ayaa ciidanka booliska controlka magaalada Gabiley ku qabteen saasaan isuduwaha ugu gudbinay waxay uu nuxurkii wuxuu noqday waxaan markaa xalaal ahayn oo hagaagsaneyn buu noqday sidaasaan saakade martay lagu go'aansaday in lagu gubo oo waxa ummadda laga badbaadiyo oo maxaan ku raayay ummadda laga qabto saasaan ku gubnay saaka oo la isugu yimid aan qoladii wasaaradda ka timi ee ay shaqadooda ahayd dadka waxaan leenahay wax xalaal ka ganacsada oo waxaan iska daaya oo wax ummaddiina dhibaato u keenaya oo xanuun u keenaya oo cudur qaadsiinaya ma banaana in laga ganacsada ee iska daaya oo wax xalaal ka ganacsada baan dadka fariintan u direynaa weeye kelmadda saddexaad waxa weeye booliisaan waanu ballan qaadaynaa in aanu qabanno wixii noocaas oo maxaan ku raayay ku shaqeyno amarka taliyaha ciidanka oo taararkii uu ku soo diray aanu maxaan ku raayay yaani ku go'aan qaadano waxa ay wixii lamidaba waxaan u xulsaaranahay inaanu bulshada ka qabanno askarta ku qabatay beer baca lagu soo moorgareeyay oo la garanayn meel lagu soo qalay iyo wax laga soo qalay midna aan la garanayn oo waxaan ku wada fara badan ayaa halkan lagu soo qabtay saraakiisha ciidamada booliska oo aad iyo aad ugu mahadnaqayno milgaha ay u soo qabteen beerkaas ama waxa la soo dhoofinay safrinta waxaan ku waa digniin ayaan u diranaa dadka ka ganacsada ama waxa wada ee dambe lagu arko inay 3 sano iyo waxaan ku ginaaxay mudan doonaan waxaan mar kastaba idinku dhiirinaynaa inaad waxaan ku iska ilaalisaan beer ama waxaan ku hilib safara oo nooca u socda oo waxaan ku meel laga keenay inaan garanayn inaan ummadeena ku lugayno waayo waa caafimaad darro taasoo haligaysa ummadeena oon aad ugu mahad celinayaa oo taliyahii qaybta ugu barbarkayga taagan yahay oo uu maanta ku guuleystay in uu ummadan oo kumanaan kun ah oo caafimaadkoodii ma garanaysaa ay badbaadiyo wax beer loo ekaysiyo oo aan anagu oran karin beer ku sheegi karin oo Itoobiya laga keenay oo 1300 oo xabba ah in maanta iyadoo gaari lagu safrinayo oo la doonayo in hudheelada Hargeysa laga iibiyo oo la doonayo in dadkeena ma garanaysaa ay caafimaadkooda lagu khalkhal geliyo ay maanta gacan bira ku qabteen wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo nagu hogaaminayo Saciid Sulub Maxamed iyo wasiirada Yurub iyo agaasime maax waxa ay isla qaateen in ay dardar geliyaan ilaalinta iyo fayadhowrka hilibka iyo caanaha iyaga guud ahaanba wasaaradda shaqadeeda maalinlaha waxa taa ka dhalatay in wareegta ay soo saaraan lagu mamnuucayo hilib kasta oo si sharci darro ah ku safraya in talaabo sharci laga qaadi doono taa waxa loo gudbiyay taliska ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan booliska waxa la yiri cid kasta oo si sharci darro u safrinaysa hilib in talaabo laga qaado tii koobaad bay qabteen tii koobaad noqon maysa insha Allah biidnillaahi kariim cid kasta oo ma garanaysa hawsha noocaas ku guda jirta talaabo laga qaadi doona ciqaabna wala kulmo Abdullah Maxamed Abbas wararka telefishinka Badcas Hargeysa